waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena. aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigno. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad janaalkeena soo booqanayso subscribe inoo saar, haddii muuqaalku ku cajab gelina sidoo kale like inoo saar. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog yar aan kaga hadli doono qaar ka mid ah jilayaasha Bollywoodka kuwa oo aynan nooleen hooyooyinkii dhalay ama hooyo la'aan ah waqtigan la joogo. haddaba waa kuwee jilayaashaasi? xogtaas aan rabaa inaan idinla wadaago ee soo dhawaada saaxiibayaal. waa taas saaxiibayaal, haddii aan ku bilaabno jilaaga ugu horeeyo ee geeriyootay hooyadiisa ama aysan nooleen hooyadiisa waa jilaaga caanka ah Akshay Kumar. Akshay Kumar hooyadiisa waxaa lagu magacaabaa Aruna Bhatia, waxa ay geeriyootay horaantii bishan hadda aynu ku jirnay September. Akshay Kumar waxa uu ka mid yahay aktarada Bollywoodka kuwooda ugu caansan, laakiin nasiib xumo bishan hadda aan ku jirno bilowgeedii ayay geeriyootay hooyadiis ama hooyadii dhashay ay soo korisay. hore waxa uu geeriyooday aabii, bishan waxa ay geeriyootay hooyadiis. dhanka kale sheekada qofka labaad ee taabanaysa jilaaga caanka ah Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan waxa uu ka mid yahay jilayaasha ugu caansan Bollywoodka. dhanka kale waa jilayaasha ay hooyooyinkii dhalay ay geeriyoodeen. hooyadiis waxaa lagu magacaabaa Fatima, waxayna geeriyootay dhamaadkii 80-meeyadii. Shah Rukh Khan waxa uu fankii intii ku soo biiray sanadii 1992, laakiin nasiib xumo hooyadiis ma aysan nooleen waqti uu fankii intii ku soo biirayay. sheekadan qofka saddexaad ee taabanaysa waa gabadha da'da yar ee lagu magacaabo Janhvi Kapoor. Janhvi Kapoor waa ururda atishadii birsamaadka caanka ahayd ama 90-meeyadii caanka ahayd ee Sridevi. Janhvi Kapoor sanadii ugu dambeeyay ay fankii intii ku soo biirtay ama filimkeedii hore waxaa lagu magacaabaa Dhatak, waxayna ku soo baxday ama la daawaday sanadii 2018. atishadan waxay ka mid tahay jilayaasha aysan hooyadood aysan nooleen maadaama Sridevi ay geeriyootay sanadii 2018. dhanka kale sheekadan qofka ay afraad taabanaysa waa jilaaga caanka Arjun Kapoor. Arjun Kapoor waxaa dhalay soo saaraha caanka ah Boney Kapoor. hooyadiis waa ay geeriyootay, waxayna geeriyootay intuusan fankii intii ku soo biirin horaantii 2010. sheekada qofka afraad ama aan dhahay qofka shanaad ee taabanaysa waa Sanjay Dutt. Sanjay Dutt hooyadiis waxaa lagu magacaabaa Nargis, waxayna geeriyootay bilowgii 80-meeyadii ama horaantii 80-meeyadii intuusan fankii intii ku soo biirin ama filimkiisa ugu horeeyay Rocky aan tiyaatarada loo saarin ayay geeriyootay hooyadiis Nargis. Nargis waxay ka mid ahayd atishadii aadka loo jeclaa birsamaadkii. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xogta yareed ee aan kaga hadlaynaa qaar ka mid ah jilayaasha Bollywoodka kuwa aysan nooleen hooyooyinkii dhaleen ama bilaa hooyo ah. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkiina like inoo saar, haddii aad janaalka cusub tahane subscribe inoo saar. waad mahadsantihiin saaxiibayaal.